إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، walaalayaal muxaadaradeenu maanta waxay ka hormartay kitaabkii aynu ku balansaneen inaynu bilowno oo ahaa kitaabu tawxiid. insha allahu tabaaraka wa tacaala maalinta berita ah ayaan si toosa u bilaabi doonaa hadduu allah subxaana wa tacaala idmo. hase yeeshee kelimadeenna maantu waxaan uga hadli doonaa mowduuc ku saabsan tawxiidka. waa in allah subxaana wa tacaala loo gaar yeelo cibaadada sida salaada, soonka, ducada, nadarka, istiqaasada, isticaanada, tawakulka iyo wixii la mid a. inta aan soo sheegnay oo noocyada cibaadada ah waa in allah subxaana wa tacaala uu la gaar noqdo wey. sababtoo ah ibni aadamku looma abuurin waxaan ka ahayn cibaado iyo tawxiid. ibni aadamku waxa loo abuurayba iyo ujeeddada laga lahaa abuurkoodu waa in allah subxaanahu wa tacaala ay caabudaan. waana tan alla leeyahay subxaanahu wa tacaala wamaa khalaqtu ljinna waal-ins ilaa liyacbuduun. jin iyo insi uma aanan abuurin ilaa haddaan abuuray waxaan u abuuray cibaado, inay anigu i caabudaan, inay anigu i waxidaan, inay anigu cibaadadu ii gaar yeelaan, inay anigu i gartaan. saas baan bini aadamku u abuuray, ujeeddadaas baana laga lahaa. bini aadamku haddii markaa ujeeddadii laga lahaa uu leexiyo ee uu meel kale u adeegsado, ama maskaxdiisa iyo qalbigiisan yar meel kale uu u tilmaamay, taa iyada ah waa midda bini aadamku hoogga ku ridda wey, waana midda khasaarada u horseeda. taa iyadaana ma aysan ahayn qasadkii ujeeddada laga lahaa bini aadamka iyo abuurkooda. taa ma ahayn. waxay ahayd inay allaha caabudaan subxaana wa tacaala. waxay ahayd in asaga ay u gaar yeelaan cibaadada ilaahi subxaana wa tacaala. cibaadadaasaan soo sheegnay, noocyo badan baan ku soo sheegnay. noocyadaa iyo noocyo kale oo kasii badan bay leedahay. waxaa cibaadaha salaada iyo soonka, laakiin dadka badankooda waxaa laga yaabaa inay markii la yidhaahdo cibaado iyo alla caabudidiisu ay u soo degdegto salaada iyo soonka, wixii kalena meesha ay ka baxaan. bimacnaa ayagoo ula jeeda wixii kaleo ka soo haray cibaadada sida salaada iyo soonka waa la leexin karaa, oo alle cidaan ahayn waa loo leexin karaa. salaadaan banaanayn in allah subxaana wa tacaala cidaan ahayn loo sujuudo. soonkaan banaanayn cidaan alle ahayn in loo soomo, ama soonaan alla dartii ahayn oo loo soomo. ducadan sidoo kale ilaahay subxaana wa tacaala in la baryo. udcuunii astajib lakum. ibarya, ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeyay aniga ibarya waan idinka ajiibayaa. taa iyadaa waxaa meesha ka baxaysa haddii bini aadam kale ama shay kale ama waxyaabo kale haddii qofka uu ka cibaado yeeshaay, cibaadadiisaas ma aha mid la aqbalay ma. ilaahay subxaana wa tacaala keligiisaa cibaado mudan, keligiisaa ducada mudan. asaga keligiisaa la leeyahay yaa rab, yaa allah, yaa kariim. keligiisa iska leh
laakiin qof kale in loo leexiyay waa dulmi iyo edab darro wey. ducada sidoo kale nadarkaa ka mid ah, oo nadarka oo baryahan asaga laftikii la leexiyo oo meelan ilaahay subxaana wa tacaala ahayn loo nadro. nadarku asal ahaan buu nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi diiday. nabiga sal ly slm wuxuu yidhi naha nadarku waa diiday. inama annadaru laa ya'tii bikhayr inamaa yastakhriju bihi min albakhiili, oo kamaa qaala salawaatu rabbi wasalaamu calayh. nabiga sal lay slam wuxuu leeyahay nadarku waa diiday. nadarkan wuxuu yidhi sal lay wasalam waxaa wax looga soo saaraa qofka baqiilka ah oo masoomaha ah oo yacni waxaweyaan aan sadaqada bixinaynin oo bakhiilka ah. qofka noocaas oo kale wax looga soo saaraa oo cibaada looga soo saaraa oo soon looga soo saaraa. saasuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. nadarkaas sidaa ah haddaad ilaahay hayrkii aada u leexisay wax wanaagsan maa. yuufuuna binnadri wayakhaafuuna yowman kaana sharuhu mustadiira. yacni waxa weeyaan insaanku kuwooda iimaanka leh ilaahay keliya caabuda waxay oofiyaan nadarka, waxayna ka baqaan maalin ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisu uu xisaabayo, waana maalinta la wada murugaysan yahay. la wada murugaysan yahay, laisku mashquulsan yahay. maalinta noocaas oo kale ay ka baqayaan. saasuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala. nadarka cidaan allah ahayn in loo leexiyay wax banaan maaha. wax banaan ma aha in ilaahay subxana wa tacala cid aan ahayn loo leexiyo. sidoo kale istiqaasada ka mid a in ilaahay subxana wa tacaala gargaar laga dalbo cidaan allah inaad ka dalbato maaha. isticaanada ka mid ahoo kaalmo weydiisi, cidaan allah inaan kaalmo weydiisanin. waan aragnayo hadda yacni dadka waxay kaalmo weydiistaan cidaan alla ahayn. mar walba ilaahay bay wax ka dawadaan iyo ilaahay iyo sheekh hebelow, ilaahay iyo kan ilaahay bay dad ka dawadaan. marka ilaahay keligii baa mudan in gargaar la weydiisto, keligiis baa mudan in la kaalmo weydiisto. tabakulka ka mida in ilaahay keliya aad tala saarato, taladaad ilaahay i saarnaato. mar walba maaha haddaad wax ka badbaadana aad tiraahdo yah yacni waxa weyaan awliyada iisoo carartay iyo sadaqaa igu yani waxa weyaan waajibtay iyo sadaqadaa i taageersay iyo wixii la mid inaad dhahdamaa. ilaahay baa subxaana wa tacaala waxaan ka iga badbaadiyey. waxa i asiibani ilaahay baa i asiibay subxaana wa tacaala, cid kale maya. wax kastana ilaahay aad u tala saarato umuurahaaga ka mid a. ilahi adaan kuu tala saaran. waxaan rabaa carruur sooma, ilahay baan u tala saaranaya subxana wa tacaala. waxaan rabaa inaan guursado, ilahay baan u tala saaranaya. waxaan rabaa inaan ganacsi galo, ilahay baan u tala saaranaya subxana wa tacaala. marka mar walbaaye xaalad walba iyo xilli walbaaye taladaad waa in ilaahay tala saarnaataa, tawakulkana u noqdaa xaqa tawakuli, tala saarasho midda ugu dhabnimada badan leh waa in arrintu ay noqoto. marka sidaan sheegnay sababta bini aadamka loo abuuri waa intaas. hadduu qofka intaa xaqiijiyo yacni waxa weeyaan waa bini aadam dhaba, waana midkuu ilaahay jeclaa, waana midka jannada mutaysanaya. intaasoo dhan ood ilaahay subxana wa tacaala u gooni yeesho waxaad ku mutaysanaysaa ilaahay jannadiisa subxaana wa tacaala. rususha ama rasuul lama soo dirin ilaa haddii la soo diray ummaddiisa towxiid buu farayey. kadib markii ay markaasi diideenna saameyntii ka dhalatay waxay noqotay in la cadaabo, in la ciqaabo. waana sidaa sunnada allah subxaanahu wa tacaala koomkiisa uu ku maamulo wey. wuxuu u soo diraa dadku mid ayaga ka mid a, rasuul ayaga ka mid oon ka dubanayn, aan magaalo kale ka imaan, oon malag ahayn buu ilaahay u soo diraa subxaana wa tacaala. rasuulkaas baana yani waxa weyaan risaalada ilaahay subxana wa tacaala usoo dhiibtaa. kii aaminoo rumeeya warkiisana qaata waa liibaani, kan qaadan waayana waa la halaagaya. rususha waxay ka midaysnaayeen oo dhammaantooda ay ka midaysnaayeen in yacni waxa weyaan aadanuhu ay khiraan kelimada towxiidka, ilaahay hayrkii ay caabudayaanna ay ka soo tagaan. sababto waxa weeyaan rasuulka marka dad loo soo dirayo waa dad baadiyeysan, waa dad baadi ku sugan wey. waxay caabudaan asnaamta, waxay caabudaan yani waxa weyaan waxay ayagu gacantooda ku samaysteen bay ayagu cibaado ka yeeshaan sooma. si qashinkaas iyo balaayadaas iyo qaabdaradaas looga saaro baa ilaahay subxaana wa tacaala xaq usoo diraa. xaqana waa rasuulka, waa kitaabka, waa sunnada buu ilaahay usoo diraa subxaana wa tacaala si mugdiyada looga saaro. ilaahay subxana wa tacala rasuul buu soo diray si yani waxa weyaan
يعني مجدية لوغا صارو من الظلمات إلى النور مجدية لغا صاريا حق النور كالله صاريا مجدقو وجهلقا مجدقو وشركقا مجدقو وإلهي عيدان هينو لعابدو افتين كان والسنة وخيرك وتوحيدك وتوكلك وإلهي درت إلهي لا تلصارتو والصلاة والصونك افتين وي عبادة صدن وافتين إلهي بيري سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلهي سبحانه وتعالى حليه وحن صارني في كل أمة كستر رسولا بأسو صارني أسبابها الله صار رسولك إيه سببتك كلفتي إن أمد الرسول الله صاري حقنا لا تسوعي أن اعبدوا الله ورددوا إلهي عابدا warkaligii caabuda warkaligii cibaadada u gaar yeela sababtaas loo soo diray rasuul ma jiri ilaa waxa loo soo diray wax kale looma soo direynin lama soo direynin dadkan bar siday ku shaqaysan lahaayeen siday adduunyo u tacban lahaayeen siday adduunyada u qurxin lahaayeen siday guryaha u dhisan lahaayeen siday xaasas u guursan lahaayeen siday caruur u dhali lahaayeen ka shaqay lama dhihin waxa loo soo diray wax weeyaan an ibudullah dadka ilaahay ha caabudaano ya qawmi اعبدوا الله إلهي عابدا واجتنبوا الطاغوت طاغوت كان أي كتغان تابع الله سدري نبي الله نوح بأقهري نبي الله نوح بأقهري قوم كي مركي الله صادر وحيري قوم كي يقول إلهي عابدا واتقوه وأطيعون يعني إلهي عابدا السجن أطيعه أن وركي يلا ساسو لهي نبي الله نوح لما رسوشي كانوا أسوي كدم بيينا سيدا بالله صدري sababtaasaana lala soo dirayay taa iyada marka tawxiidka waxaad ka dareemi kartaa ahmiyada gaarka ah oo islaamku ku leeyahay ahmiyad gaar ah buu ku leeyahay qofka inuu ilaahay keligii uu cibaadada u gaar yeelo kana taga taaquudka waa wax kasta oo cibaado laga yeesho wey waa wax kasta oo cibaado laga yeesho oo la caabudo taaba taaquud yiraahdaa ilaahay qeyrkii wax kasta la caabudo waa taaquud wax wanaagsan ma dadka marka ummadaha ah ee rasuulka loo soo diray qaar waxa kamid ah rasuushii beeniyay qaar waxa kamid ah rasuushii raacay faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi dhalala yani waxa kamid ahayd qaar rasuushii aaminay oo rumeeyay iyo qaar badan oo rasuusha ayagu beeniyayo baadi ku dhax sugnaaday baadidina ay ku dhabowday cadaabkii ku dhaboobay baadidii ku dhawowday waatan ilaahi subhanahu wa ta'ala fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu al mukaththibiin ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay war dhulka mara bal soo eega bal soo fiiriya ummadahaasi beeniyay rasuushii loo soo diray ee markay dhahayeen ilaahay caabuda diiday oo diiday oo yiri ilaahay ma caabudayno waxaan rabtaa ilaahiyadeenas yani kumanaanka inaad hal ilaah ka dhigto taa iyada wax soconay ma saas yiraahdeen ilaahiyadeenan saa u badan ya oo inta sanamka ma rabtaa hal ilaah inaad ka soo qaado oo tiraado ilaahay hal way inaad dhahdo man rabtaa ma rabno taas ideen taa waxa ka dhalatay marka in la ciqaabo yani xawiyaan la cadaabo oo arlada dusheeda ayagoo ku sugan la cadaabo lana dhadhansiyo cadaab dhow دون العذاب الأكبر عذاب كي وينا كسك بوحالة دنسيي عذاب دو عذاب كدون وعذاب كأدون كوي الدنيا ذا لقو عقابي لقونا عذابي مركب فعل أي سميين بكرد شيء أدون كلقو عقابه لقو عذابه فعل كان وحو نقضي إلهي غير كي ها عابدنا إلهي غير كي بان عابدينا تابيهد إمكا أينو تشوكنا qofka ilaahay qeyrkii caabuda oo cibaado ka yeesha sidaas oo kale loo ciqaaba cadaabkuna waxa laga yaabaa in istiraahdo hadaba ma arkin ba qof hadda yani ummatu Muhammad kamid aho ama qoom iyo qolo kamid aho inta dhulka la gidiyay la ciqaabayo maanan arkin say ku dhacday ummatu Muhammad waa sax waa ummad khayr qabtay kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ummadaha ugu khayrka badan baatihiin buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo sheegay taana waxaan ku mutaysanay inaysan dhacaynin cadaab loo dhan yahay musiibo wadareed inaysan dhacaynin walaakin meel dhow baan nagala siin karaa
cadaabku hamoodin in dhulka lagula gooyo, cadaabka hamoodin in cirkaas samaawaadka lagaaga soo daadiyo dhagxaan, cadaabka hamoodin dabaylo in lagugu soo diro, cadaabka hamoodin yani dhulgariiro ummadoo dhan saameeyo in u dhacayo. cadaabku sidaa hamoodin, meel dhow baa lagaa siin karaa, caruurtaadaa lagaa siin karaa, naftaadaa lagugu ciqaabi karaa, cudurro halis lagugu ridi karaa. amni daraa dhici karta. ummaddu hadday ku soo badato shirkiga, dhibaatada hadday ku soo badato, waxaa badata fitankaa bata. dumarkiyaa halaaba, raggiyaa halaaba, fitankiyaa bata, amni daradiyaa badata, dhibaatadaa badata. laakiin haddii la helo waxa weeyaan tawxiid la helo, ilaahay yani waxa weeyaan xaq lagu caabudo, keligiina cibaado loo gaar yeelo iyadoon meelo kale la laalaynin oo la laacaynin, keligii cibaadada loo gaar yeelay, waxaa dhacaysa waa amni. tawxiidka amniyaa lagu helaa fi dunya waalaakhira. adduunyana amni baa la heli, aakhirana ilaahay cadaabkiisa laga nabadgeli oo amni laga helayaa. taa iyadana amniga waxa ugu weyn oo bini aadamku la siiyo wey, waana midda loogu naxariistay saan aragnay tafsiirka ku aragnay. yacni quraysh falyacbuduu rabba hada albeyt, rabbiga beytka caabuda, cibaadadana ilaahay u gaar yeela. haddaad sidaas samaysaan, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idinka aamin yeelayaa cabsida, baahina ilaahay waa idinka aamin yeelaya. sideedaba yani waxa weyaan tawxiidku labadaasaa lagu helaa, in ilaahay amni ku siiyo iyo in ilaahay subxaana wa tacaala barwaaqa keeno. abaaruhu ilaahay qaada subxaana wa tacaala. abaaruhu maxay ku yimaadaan? ilahay qeyrkii baa la caabudaa. reermiyigii waad aragtay, reermiyigii waad aragtay, qof walba waxbuu ka cibaado yeeshay. mid sheekh bay ku cibaado yeeshay, mid qabri baa lagu saliday, mid yani hawadiisa lagu saliday. cibaadaduba waa ku yartahay. waxaa laga yaabaa tuulo dhan in hal masaajid uu ku yaallo, halkaa masaajidna hal saf kaliya lagu dukanayo, oo dadka tuuladaa degan oo dhan wax dukadaba la waayo. dumarkana sidooda maba dukadaanba. oo maxaa ku dhacay la yaqaano, dumarka maba dukadaanba yani waxa weyaan tuulooyinka. marka meelaha baadiyaha ah oo sidaa yani waxa weyaan cibaado daradu ay u taallo, salaad la-aantu, soon la-aantu, ilaahay keyrkiio la caabudo, sixir, balaayo, khuraafa, sidee baad ku liibaani? sidee baa guul lagu gaari? sidee bay barwaaqo u dhici? dadkiina loogu naxariisan lahaaba hadday sidaa yihiin masaakiinta ah, hadday ilahay keyrkii caabudayaan. waa dhibaato weyn wey, waa dhibaato weyn oo musiibo ah weeyaan in ilaahay subxaana wa tacala cibaadadii laga tago. fa minhum man hada allah, cibaadada allo loo soo laabto waa hanuun. hanuun wey, hanuun cad wey. laakiin qofka hanuunka ka bayra oo waddada jidka loo jeexay jidaan ahayn qaadayay, wuxuu noqonayaa qof baadiyeysan. qof baadiyeysan buu noqonayaa. wa minhum man xaqat calayhi dalaala, baadi baa ku dhaboweysa qofka noocaas oo kaleentaa. ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala, bal soo eega ummadii idinka horeeyey ee cibaadada diiday oo ilaahay keyrkii laga kari waayey, ilaahay iyo laga kari waayey. hadda dadkii hore ee gaalada ahaa ayagu waa rumaysnaayeen, saan arki doonno. cirka yaa abuuri alley ku leeyihiin, dhulka yaa abuuri alle, roobka yaa keena alle, musiibada yaa keena alle. laakiin waxaa lagu kari waayey ilaahay iyo, waa midda maanta taagan wey, ilaahay iyo rasuulkiisa iyo ilaahay iyo hebel iyo waxyaabahaasaa laga kari waayey ummadda maanta jirtaay. saa daraaddeed buu ilaahay subxaana wa tacaala yidhi, war ku cibro qaata, war ku caqli qaato, fasiruu fi lardi, dhulka maraba. meelihii ay deganaayeen waad ogtihiine, bal mara. soo fiiriya magaalooyinkii lagu ciqaabay dadkii hore, qowmu luut, qowmu caad, qowmu thamuud. dhulkii lagu cadaabay qowmu yani waxa weeyaan dadkaas dhulkii lagu cadaabay soo fiiriya. maxaa yaala? ma dad haraab baa yaallo dad xilligaan noolaa ma ilaa hadda nool? soo fiiriya, wax nool ma jiro, waa la ciqaabay. bal iska daa inaad soo fiirisee lugtaba ma gelin kartid. ciqaabta ka dhalatay baa waxay sababtay xataa arladii ay deganaayeen inaan dhulka la gelin, yani waxa weyaan lugta la gelin. taa bay ka dhalatay. fasiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin. dadkii ambiyadii loo soo diray oo cibaadada lala soo diray beeniyey, yani cirib xumadooda bal soo eega.
adigu maxaa tahay marka adigan liita bal ayagu waxay ahaayeen ummad xoog badan xagga dhismaha iyo xagga horumarkana ayagaa naga horeeyey xagga jir ahaan iyo awood ahaan ayagaa naga awood badnaa maanta annagu cimrigeenu un 60 iyo 70 iyo kan ugu badan 110 meelahaas ku dhimanaya ayagu 1000 sano 2000 sano 1500 sano bay ku geeriyoon jireen ummadahaas la cadaabay oo sida u awood badan xoog badnaa adiga waxa tahay male waana lagu ciqaabi karaa waxna kama duwanid laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala ciqaabtiisa meel dhow buu ka siin karaa inta meel dhow laga siinin isgaro oo ilaahay kaliya caabud subxaanahu wa ta'ala arinta kale waxa weeye arintaas waxa noo sii cadeynaya ayadaha yani ama xadiiska nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam alayhi xadiiskii mucaad nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam alayhi goortii uu u diray Yemen hadaan soo aragnayo ummad walba oo nabi loo diro wuxuu dhahay ilaahi caabuda cibaadada kaliya u gaar yeela saasuu dhahay nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam waa la mid ahaa rususha la soo diray inuu cibaadadu yani tawxiidku ay tahay ama uu yahay waxa ugu horeeyo ee ummad laga xisaabiyo ama waxa ugu horeeyo ee qof loo sheego qof jaahil ah qof gaal ah qof la gaarsiinayo cilmiga dalabatul cilm yani dadkaas oo dhan waxyaabaha ugu horeeya la doonay inay bartaan waa tawxiidka la doonay inaad barto waa tawxiidka ahmiyad gaar buu leeyahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markii uu dirayay mucaad oo Yemen u diray wuxuu yiri ya mucaad innaka satati qawman min ahli alkitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay mucaadow waxaad u tagi doontaa qoom oo ahlu kitaabka kamida qolo ahlu kitaabka kamida had u tagi doontaa yahuudi nasaaro ee han noqdo waxa ugu horeeyad ugu yeerayso kelimada tawxiidka waxa kala farin salaad dukada iyo sooma iyo zakad dhiiba iyo howlahaas gadaal bay ka iman doonaan insha Allah wa qofka markuu qalbigiisa ku dago tawxiidka aaminana ilaahi subxaanahu wa ta'ala kaliya inuu cibaado mudan yahay ahmiyada koobaad ee ugu muhiimsan wax weeye qofka inuu tawxiidku qabsado way si dhabana u qabsado ilaa hadda wala wada haysta sooma tawxiidku waan haysanay la ilaha illa allah waan dhahaynay salaadi waan dukanaynaay soonkii waan soomaynay hay maxay tahay ziyaaradan maxay tahay ilaahay qeyrkii la caabudayo maxay tahay waxa sameeynaysan ilaahi haddaad wax ku yani ku garab wado yani xooy mar walba cibaadadaadu waa naaqus ilaahuma salaada doonto dukatid ilaahuma salaad doonto u soontid ilaahuma salaad doonto salaatul leil u soo kacdid salaad doonto waa shahaadatid marba haddaad cibaadada ilaahay keligii aadan siin karin oo dad kale ku garab wado adigoo qadarinay waa sheekhaygee karaamuu leeyahay iyo wixii la mid oo kale asiinayso balaaya kugu soo socoto musiibo waan arki doonaa dib baan ka arki doonaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala shirkiga iyo allah subxaanahu wa tacaala oo cibaadadiisa cidaan mudnayn loo leexiyo wuxuu allah subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay qofka noocaas oo kaleenta tilmaam aad u foolxun tilmaam aad u foolxun baa lagu tilmaamay allah wuxuu ku sheegay qofka shirkiga inta badan sameeya oo ilaahay qeyrkii caabuda ilaahay wuxuu ku tilmaamay qof cirka ka soo dhacay Soomaalidu waxaan dhahnaa qofka xoogaa waali aan ka dareeno carar aan ka dareeno fudayd aan ka dareeno yani waxa weeyaan madax adayg aan ka dareeno maxaan dhahnaa kani waa habaaran ya cirku ka soo dhacay soo ma hadan garan ilaahay baa hore wuxuu ugu sheegay ilaahay wuxuu u yaqaana kuwa cirka ka soo dhacay waa kuwa ilaahay qeyrkii caabuda waa kuwa asnaamta caabuda waa kuwa qubuuraha wax ka dayda waa kuway awliyada u yaqaanaan caabuda ama cibaadada u siiya kuwa noocaas oo kaleenta buu ilaahay wuxuu ku tilmaamaya subxaanahu wa ta'ala cirkay ka soo dhaceen buur maba la yaqaana waxay yihiinba wax la yaqaana ma cirkaasay ka soo dhaceen waa habaaran yihiin saasa loola jeedaa maxaa u daliila ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay aayadii xunafaa'a lillahi ghayra mushrikiina bih waman yushrik billahi
فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صعيق. إلهي سبحانه وتعالى وحليه دينتو إلهي اللو قاريلو كو ددك إلهي الدورتي وحاكمدها كوان إلهي سبحانه وتعالى والشريك يلين. نبي الله إبراهيم باكمدها صوما سادرات ابو إلهي سبحانه وتعالى وحليه ومن يشرك بالله كو إلهي الشريك يلا أو إلهي عيدان أهين عبادة أوليحية عبادة وصارك نصوما صلاة الصونك الندرك الدعاء وحس أن صار كيني قفك ليحيو مال كلجيا كو النوع الصوكلنتا فكأنما خر من السماء بالله سبحانه وتعالى وحي كسر دعين عركك هو كسر دعي وكلوي قف عركس لقصه هالجاري وكلوي الله سبحانه وتعالى ليه فكأنما خر من السماء قف عركس لقصه طوري وكلوي أو فتخطفه الطير شمبروه أي كلا دفيان هادو هيلب كيسو أي كلا دفيسو تسوي الله سبحانه وتعالى سقف هبار كدعي ما قف هبار كدعي قف انت السماد لقصه طوري أو يعني انتو دحدا كسو جريو دنبا هادو iyo yani waxweeyaan shimbiruhu ay yani waxweeyaan hilibkiisu kala dafayeen mid garabka ay la boodaysa mid wadnahay la baxaysa mid garabka kale la baxaysa mid madaxay la baxaysa mid yani waxweeyaan lugtay cajar kamid qaadanaysa mid waxay dafaysa inta hawada ku soo jirto dhan waa lagu mashquulsan yahay gorgorka balaayada waxaas oo dhan baa ku cunay haada hilibka kala dafaysa musiibo weyn soo kugu dhicin عركس إن لقى صوت توراي وحسال ما فكأنما خر من السماء بقول الله سبحانه وتعالى سيدا قف السماء لقى صوت توراي وكلامه بقول الله سبحانه وتعالى قف كالشرك يقدع أو إلهي عبادتي سليحية أو إلهي إياك وهايا إلهي الرسول كيسا إلهي أولياء إلهي هبل كوهايا وقف السماء لقى صوت توراي وكلامه هلب كيسونا أي هذا كلا دفيت بقول الله سبحانه وتعالى أو تهوي به الريح dabayluhuna ay ku tuurayaan fi makaanin saciiq makaan iyo boos iyo meel banaan oo ban ah hadda hadii lagu gargaari lahaa bay ahle Soomaa Muqdisho kale hadii lagu soo dhac tuuri lahaa waxa lagula carin lahaa xagga iyo isbitaalada lagula carin lahaa shimbiruhu intay hilbahaaga kala dafaan oo midba meel ka goosato dabayshuna ay ku haadaaminayso baad dabayshu waxay ka tuuraysaa aad ku dhacaysaa meel saxara ah oo laba dagaan ah oo cid ku gargaarayso garab ku siinaysa aynan jirin bay dabaysha kugu tuuri magaala ka dhaweyn tuula ka dhaweyn meel banaan oo ban ah bay kugu tuuraysaa dabayshu waa qof musiibo dhan isugu tagtay way musiibada koobaad cirka laga soo tuuray musiibada labaad abal laga soo tuuray asagoo nabad qaba haduu jidku ku soo jiri la waxbay aan leed intuu jirka ku jiriyo jidku ku soo jirayo dhan hilbihiisa la kala dafay haba la kala dafay dib malbar haduu dhulku ku soo dhaco waxa laga yaabaa in loo gargaaro isbitaalada la geeyo isbitaalba maxaa la geeyaa dabaysha waxay ku tuurtay meelanba adduun ka dhaweyn ban oo banaan ah oo carra ah oo saxara ah bay dabaysha ka tuurtay qofkaas musiibo ma u dhiman macna habaar wi marka habaar qofka ilaahay geyrkii caabuda musiibaha ku dhacdo taas wi macna marka xuyaan qof dhicirka laga soo tuuray oo shimbiruhu kala dafeen oo dabayluhuna meel banaana ku tuureen musiibo kala u dhiman ilaahay kaabuu kugu tilmaamaya marka shirkigu waxa lagu sheegayaa inuusan wax sahlan ahayn quraankuna uusan sahlin quraankuna uusan fududeynin meel fog baa la gaarsiiyay qofka shirkiga ku dhaca ilaahay geyrkiina caabuda ilaahay geyrkiina wax ka dayda meel fog baa la geeyay fakaannama kharra min as-samaa qof samada ka soo dhacay oo kale iska ilaali marka insaala ma sidoo kale misaal kala jiro quraanka ku misaaliyo aad u badan qofka shirkiga sameeyay aad bay u badan yihiin misaaladiisu misaaladu la yaab kale ee uu quraanka ku misaali kuwa ilaahay geyrkii caabuda ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku tilmaamay mar kale xayawaanada kuwa ugu liit baa lagu tilmaamaya xayawaanada kuwa ugu liita ugu tabarta daran baa lagu tilmaamay xataa waxa lagu si tilmaamaya xayawaanadaas guryahooda qof ku nool kale soo qadar ma marka
xayawaanka ugu liita in lagugu tilmaamo tilmaamta waxaad ku mutaysanaysaa ilaahay qeyrkiidu caabudo hadda maxaan soo sheegnay qof habaaran weeye qof cirka laga soo tuuray weeye qur-aankaa sheegay soo ma haddana waxaa lagu tilmaami doonaa qof yacni xayawaanada kuwooda ugu liita baa lagu tilmaami doonaa ilahay waa tan uu leeyahy subxaana wa tacaala mathalu ladiina ittakhaduu min duuni illahi awliyaa kamathali alcankabuuti itakhadat beytan wa ina awhana albuyuuti labayt alcankabuut low kaanuu yaclamuun waa suurada ugu xumeed wey afshaxa suura wey suurad midda ugu fool xun in xayawaanka caaracaarada lagugu tilmaamo caaracaaro wax ka liita maa jiraad ya caaracaaro wax ka liita ma jiraan waa kafiif way dhacdhacaysaa gurigeeduna waa guri iska kafiif ah guri iska kafiifa wey saa daraaddeed bu ilahi subxana wa tacala wuxuu leeyahay mathalu ladiina ittakhaduu min duuni illah kuwii mithaalkoodu kuwii waxay la mid yihiin kuwii waa kuwii aladiina ittakhaduu min duuni illah kuwa ilaahay geyrkii caabuda kuwa yeesha ilaahay sukadiisa awliyaa kuwa kaloo ayaga u gargaara waxay leeyihiin sheekh hebelow noo gargaar sheekh hebelow roobna si sheekh hebelow caruur baan rabaa gargaar buu ka dalbanaya ilaahay keyrkiisa wey ma dhahayo ilaahay caruur baan rabaa ma dhahayo ilaahay waxaan rabaa nabad ilaahay waxaan rabaa sida ilaahay waxaan rabnaa roob ilaahay waxaan rabnaa nabad dhihi maayo intuu cararo wuxuu leeyahay yani sanadkan waa sanadkii ziyaaradii hebel waa ziyaaradii sheekh hebel waa inaynu u kala cararnaa falyatanafasi lmutanaafisuun baa ka dhacaysa waa la carari xaggee loo socdaa waxaa loo socdaa ziyaaradii sheekh hebel wax le isla dudaya waad la yaabi markaad aragto waxaan war dadkan xaggee u socdaan war dadkan badan mudaaharaad bay samaynayaan waad yaabi markaas war mudaaharaad maa joog war mudaaharaad maa joog maxaa dhacay ziyaara la socdaa ziyaarada waa xaggee sheekh hebel ziyaarada waxaa ku jira qaladaad aada u badan musiibo badanaa ku jirta waana ummadda ay maanta ummaddu ka degilada kuwa awliyay samaysteen ayaga u gaara waxay yidhahan kani waa awliyo kani waa kii noo gargaarayay gargaaraheyna wey soo degdeg noo gargaar digriga balaayada qajajacda heesay qaadayaan la yaab leh cajiib wey kuwa noocaasoo kaleenta buu ilaahi subxaana wa tacaala leeyahay ka mathali alcankabuut cankabuut mataqaana cankabuut waa caracara laga wada ka mathali alcankabuut oo kale wey cankabuut oo kale waa buu ilaahi subxaana wa tacaala cankabuutu guri bay leedahay gurigeedana waa guri aada u qaab daran waa guri aada u cariiri ah waa guri rafaad badan wa ina awhana albuyuut labayt alcankabuut buri ilahi subxana wa tacaala guryaha kuwa ugu liita ugu qaabka daran waa labayt alcankabuut waa sida guryaha caracarada oo kale buri ilahi subxana wa tacaala guryaha caracarada waa guryaha ugu liita guryaha kuwa shirkiga sameeya ay ka soo baxayaanna waa guryaha caracarada saasaa loola jeeda macnaa guryo caracaray ka soo baxaan waa guryo aada u liita waa guryo aan la iska waansan waa guryo wax celiyaba ma leh shirkigay ku dhacayaan balaayadii ku dhacayaan dabkii ku dhacayaan naartii ku hoobanayaan wax celinayna ma leh guryahooda waa guryo liita wey meeshay u socdaan waa meel liidata ilaa meel ilaahay keyrkii lagu caabuday ma ah meel sarayso oo wanaagsan oo khayr laga soo qaadanayo ma aad iyo aad saa daraaddeed baa aada u wanaagsan tahay in laiska fiiriyo ilaahay mithaalo aada u tiro badan buu ku mithaaliyaa xataa eyga baa marmar qaar lagu mithaaliyaa mathaluhu kamathali lkalbi soo mahay ey oo kale wey waa eyga oo kale eygu haddaad wax siiso ood meel nabdoon geyso oo hoos ah oo qabow haddaad fariisiso carabkuu laalaadaya in taxmil calayhi yalhad samay aayaddi haddii yacni meel wanaagsan u qaadood fariisiso carabkuu laalaadinaya haddii ow tatrukuu yalhad soomay haddana haddaad ka tagtood dhibaatadiisa uga tagtana qoraxdiisa biyo la-aantiisa dhibaatadiisa haddaad ku daydana yalhad haddana oo carab laalaadinaya sina uma wanaagsan eygu sidiisaba ama adigu khayr u sheeg macnaa waxaa loola jeedaa qofka asagu ilaahay aayaadkiisa ka taga oo cibaadada lagu kari waayey
سكستود حق وغشك تاي حق ديقي مايو مقادنيو كايلي مايو توبد ما توبد كينيو ولي وكتاغين بل waxaa laga yaabaa inuu qiil u raadiyo oo ahadiis u raadiyo oo aayado u raadiyo in ilaahay qeyrkii la caabudo soo heli maysid waad hoogaysa ilaahay qeyrkiisa la caabudo aayadna u soo heli maysid xadiisna u soo heli maysid marka waa sida eego kala weey xaq u sheeg ama ha u sheegin carabku la laadinaya mar walba ay waa soo taaganya xaqu ma deeqo ma toobad keenaba waa soo taaganya khuraafaadkiisa wili ku taaganya sadaradeed han noqonin miisaalada ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku miisaalinaya kuwa yani xooyan xaq diiday isla markaana ka cibaado yeeshay ilaahay qeyrkiisa subxaanahu wa ta'aala xitaa kuwa la caabudo ilaahay subxaanahu wa ta'aala qeyrkiisa alla miisaal buu u sameeyey wuxuuna ku sheegay inaysan wax awooda u sugnaanin wax awood inaysan lahayn wamacnaa kuwa la caabudayo hadda kuwa la caabuda haddii awood lahaan lahaayeen waxbaa la dhihi lahayo dadkan wax awood leh caabudaan baa la dhihi lahaa waa kuwa liita haddaad indhahabood arki waxaad arkaysaa qof boombala caabudaya war boombala muxuu tari dibi baa la caabud dibi muxuu tari sanam taaganoo adigu gacantaada ku samaysa muxuu tari adigu intaan aayad qur-aanba lagu raaraadin adigaaba isfashilayaba war waxaan maxay tarayaan adigaa sameeyey adigaa samaystay sheekha laftirkiisa aad yacni cibaado ka yeelanayso asagu isma duugina bini aadam baa duugay haddana awood maba laho wax noolba ma aha waaba wax dhintay waxaad caabudayso bini aadam geeriyooday oo asagaba ilaahay u baahan baad intaad qabrigiisa ugu tagto baad wax weydiisanaysaa baad qadarinaysaa baad qiimo u yeelaysaa keliya waxay ahayd inaad samayso inaad ilaahay u barido tira ilaahay daciifkaas yaa imsaankaas yaroo liita ilaahay aduu kuu baahan yahay maanta ilaahay u gargaar ilaahay yani xooyaan su-aasha ku sug ilaahay jannadaada gee inaad dhahday ahayd abaalkiisa waad gudi lahayda walaakiin haddaad cibaado ka yeelataay asagana qiyaamaha waa la qabsanaya aduguna waa lagu qabsanaya musiiba ku riday marka musiiba qorta u gelisay qofka noocaas oo kale inta adigu waxay kula tahay sheekh hebel weeye hala qadariyo hala ziyaarto hala weyneeyo bay kula tahay laakiin musiibaad qorta u gelisay kuwa la caabudayo wax awooda ma leh ilaahay baa awood leh subxaanahu wa tacaala واتن إلهي سبحانه وتعالى ليه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له وارضضوا مثال كلام إذن وضب الله سبحانه وتعالى ولا فيرس كوي وحعبدي أو أيقو عبادة كي لنا يبقى مثالنا الأساسي مر أي لقوت المامئيو مر عار لقوت المامئيو مر قف صمدك الصدع لقد دقائيو مر لبهدلئيو بل لقد صدق سما كو إلهي غيرك يعبده وعبادة كيشة والليحية صوص ماي haddana kuwa ayaga laftirkooda la caabudayo yaa baa la leeyahay wax awooda uma sugnaanin tada le ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala taa intaan u gudagelin waxay caabudayaan inaysan awood lahayn baa lagu sheegi dadow waxaan idin yeelay mithaal kale baan idin soo wadaa buu yidhi ilahi subxana wa tacala duriba mathal mithaal baan idin keenay haddana ee fastamicuu lahu i dhegaysta mithaalkan dhegaysta saasuu ilahi subxana wa tacaala aan ku dhegaysanna ilahay noo sheeg ina aladiina tadcuuna min duuni illaah kuwa ay baryayaan oo ay wax weydiisanayaan ilaahay kayrkii ay baryayaan lan yakhluquu dubaaban ticsi ma abuuri karaan kuwa ilaahay kayrkii ay caabudayaan oy ka cibaado yeelanayaan ama wuxuu doon ha noqdo sanam ha noqdo insaan ha noqdo wuxuu doon ha ahaado xayawaan ha noqdo qoraxda ha noqoto bisha dayaxa nebiga waxaasoo dhan lan yakhluquu dubaaban ma abuuri karaan buu ilaahi subxaana wa tacaala tixsi xataa iska daa wax kale bini aadam iyo waxyaabahaas iska daa tixsi xataa ma abuuri karaan lan yakhluquu dubaaban tixsi ma abuuri karaan walow ijtamacuu lahu xataa haba u kulmaanee kan barbisoorkooda ah saynisyahankooda kan aqoon-yahankooda caqliyahankooda balaayayahankooda baa isku keenaano meel hal isugu yimaado hal laga tashto sida tixsi loo abuuri lahaa lama abuuri karo tixsi buubayo socdo tixsigan caadigoo kale ah ma abuuri karaan xataa hadday u kulmaan oo ayagoo dhan insaankoo dhan bini aadamkao dhan ta isugu tagaan ma abuuri karaan tixsi xataa oo qofaan tixsi abuuri karin maad caabudaysaa
سو عقل الآن ما عقل الآن وي عقل الدرو أن عادي هم ويقولوا تحسق فان أبوري كرانو ليتا يا أياد عبادك هي لنا إسا ولو اجتمعوا له حتى هأكل مانه وإن يسلبهم الذباب شيئا يعني شيئا هدي تحسقوا شيء كلا عررو لا يستنقذوه منه كما صدع سنكران شيء هدو كلا عررو اسكدا إني أبوراني تحسق انتو عنتدو كود دقو هدو هل حبو الدقير كقاتو أما هل حبو بريسة وكلا عررو أما هل حبو وحون كلا عررو كما صدع سنكران بين تدوي تكدب عران تحسيق إيجا سو قبطة وريجا سو قادة مديه كران مكا قادن كران وتحسير تحسير وي أو هدو وعكا قادة أدن كسو دعسن كرين ضعيف نمدا سباد ليدا هي آدنو مركاسات ربطا إن لغو عابدو مركاسات ربطا إن عبادا لغا يلو لغا يشو بني آدم كو مركو لو شيغيا إن إلهي غير كي يسان عابدين كوي عابدا يانا تحسي يسان أبوري كرين حتى إني أبوران اسكداي هدو تحسيق وح كلا عرو إني سن كسو دعسن كرين ضعف الظالم والمطلوب إلهي سبحانه وتعالى آيات وحكسو كوبي كان وح لغا دلبانيو وضعيف كان وح دلبانيو وضعيف ويقول الله سبحانه وتعالى بني آدم كو وح دلبانيو بني آدم ضعيفة الساقا وح دلبانيو دا شيخ قبلو يقرقر نعاوي وحنا السي نبيو يعني حبيان wax kastay caabudayaan wax kastoo cibaado laga yeesha laga hadlayaa meesha kan wax laga dalbanayo daciif weey wax ma tari karo kan wax dalbanayana daciifnimadiisa asaga muujiyo sooma asaga wax weydiisanayo dhahay war hebelo wax isi gargaar asaga dhahay sooma waa daciif kana waa daciif laba daciif wax is weydiisanayso Soomaalidu waxay dhahaan laba qaaban isma qaado lama qaaban isma qaado kani waa qaawan yahay oo wax ma tari karo wax ma hayo kana waa qaawan yahay yaa wax la tara marka yaa wax la siiya yaa sadad wax siiya labadooduba waa laba daciifoon aan waxba taraynin da'uf adh-dhalib wal matlub midku wax laga dalbanayo hoogay kan wax dalbanayna hoog baa ku dhacay saas wiil Ilaahay subhanahu wa ta'ala leeyahay oo muxuu wax taraaba oo muxuu wax abuuraaba asagaaba la abuuray walladina yad'una min duni Allah la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun إلهي سبحانه وتعالى بحوليه كوا أي عبادو كي يلانيان ويعابديان لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وحما أبوري كران أي قاب الله أبوري أذي قاب الله أبوريو قرقار أباهن محاد بوح أبور تابا محاد بوح كين تابا أبود أبوريستا كوم كوردن بني آدم كوردن إيو حيوانا دوردن الله إسكاله هل قفض باله عد والبنا وما سمين كرتسيدو إلهي سميه سبحانه وتعالى الاسكي إلى عليهم كان عجيب كوا يعني حويا لو ذاتيا أما عبادته السيان إلهي غيرك سبحانه وتعالى وسيد أن صوشك نيو وحبا ما أبوري كران إني سنوح أبوري كرين إلهي باكت شوابي سبحانه وتعالى oo horena ugu soo jawaabayo la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wax maba abuuri karaan ayaga la abuuray ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu kala noo cadeynaya kuwa ilaahi qeyrkii caabuda sidoodaba dhan bay ilaahi ka rumaysan yihiin halka dhanka kale aysan ilaahi ka rumaysnayn ilaahi waa u rumaysan yihiin inuu samada abuuray arlada abuuray waa u rumaysan yihiin لكن وحيسن رميسنين إلهي كليجيس عبادة سيا عبادة تعادة نذرك وحكستا قرقارك كالمويديسيك إلهي بأسكاله عد كلام الله انكرت إلهي سبحانه وتعالى وحيري قل من رب السماوات والأرض قل الله كده رسولك إلهيو يا ربي أوه يا أبوري يا برباريا يا أقرقارة السماوات كي عرق دولك قل وحي كدهيان الله قل الله قل الله ساكده إلهي بأبوري سبحانه وتعالى قل أفأتخذتم من دون الله أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلهي سبحانه وتعالى وحليه
ورموحات كيلانيسان إلهي السكدي سماد يلانيسان داد كالو إذنك إذن قرقارة ما سميسانيسان قعنين كسميسانيسان إلهي عيدان أهين أو إذنك أولياء إذن أهمية سميستين ولبا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا نفتي نانو أن وحبا كسو كردينين ونعفيا هذا وحكو مصين كرو من سيدة هذا كلانا وحكا مقادي كرو هداد ما انت كو كفري صوت هذا أولياء دا وكو كفري إلهي غيرك وكو كفري إلهي كليغان عابودا يهداد تراهدو وحبا كو مدبي كرو إلهي سبحانه وتعالى غيرك هداد عابودو وكو عقابيا وكو عذابيا نار بعد دنبيسا عقاب عقوبة دنبيسا صما لكن متكان كلا هداد تراهدو كو عابودي مايو قبريو وان كلا دماني صنمو وان كلا دماني عرو وان كلا دماني حديقي وان كلا دماني بلي وان كلا دماني قرحي وان كلا دماني رسولك أن إلهي رسولك سديه جري وان كلا دماني ومعنى دنك عبادة أساقا ممدنا راعد وي أساقا إن راعو وركيس الله يلو أمركيس الله قاتو لو هقان سموي لكن ما هين أساقا وحلا ويدي سنكرو انتا صدنا هدا تراد وان كلا دماني وحبا مكا قادي كران كما عقابي كران وحما كو يلي كران كتوبت كما كتوبي كيني كرتاي إلهي وعد سبحانه وتعالى قل أفأتخذتم من دون الله موحد كيلانيسان إلهي السكديس أولياء كلا أو ديدنكو عبادة كيلتان أو لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا نفتيننا أن دي بكرين نفتيننا أن نعفي كسو كردين كرين مياد عابو ديسان قل هل يستوي الأعمى والبصير ورددو قف إن دله قف إن يعني إن دولا مسميهن قف إن دولا قف وعارك كرمسميهن ومعنى جوابته ما يوي هداد ما يتيرهدنا كان إن دولها وكان إلهي غيره عابده كان يعني حويان إن ده اللهنا وكوك حق كتاغن وضد السعدة هيوي هو النوع سوكلوي قفك يعني حويان إن ده الله كواسي أم يعني الله سبحانه وتعالى وحوليه هاي أم هل تستوي الظلمات والنور ورمجديو إفتين ما اسكو مدبع إفتين إيه مجديو إفتين كوا علمك وأقونتا ودينتا وتوحيدك ووناقا وإلهي غير إلهي سبحانه وتعالى كليجي أولا عابدو إفتين كواكا ولكن مجدك أياه شركك جهلك خرافاتك بلايدا شياطينتا لعابديو لقى عبادة يلانيو كوا سوية ظلماتك مجدك وأيغا مجدي باد كجرتا هداد كوا عطيعضو أود وركوضا يش إلهي غيركي سادرات أبو إله سبحانه وتعالى وحوليه هل تستوي الظلمات والنور والمسيميهن مجدي يفتي مسيميه أم جعلوا لله شركاء مسي إلهي با شركاء يليسان أو waxaad leedihiin ilaahay oo adigu waa ku rumaysannahay horta annaga ma ku beeninin salaada waan ku dukanayna waan ku soomayna wax kasta waan sameeynayna waan ku rumaysannahay walaakin shuraka jirto dad xoogaa wax kula wadaagsan kara jiro أولياء حوغا يرى شيخ بو أهاي وهرو أجيريودو حوغا وكل وداقي كرا دم ماله إلهي يساس ما لديه عقل علموي أيضو وفيرس عقل قاقا ديب لسو علينيا هدي انتا صدان ايسان اسكومي دهين أو يعني وحويان كان اندولها او يهي كان مقدية كسوغانو شركي كسوغان كان وحاركيان او يهي كان حق كسوغان يعني وحويان مقدية كسوغان يهي كان شركي كسوغان نورك كسوغان يهي كان حق كسوغان او توحيد كقاتي او إلهي كريجي عابدي هدو سيدا حالك او يهي sidoo kalena samaawaadka alla kaliya abuuray dhulalkana sidoo kale alla kaliya leeyahay haddii xaalka sidaa yahay oo intaasoo dhan ba aad rumayseen waad dhowdihiine mu waxaad leedihiin ilaahayow waa sax laakiin shurakaa jirto cibaadaadka qaar baa lagula wadaagsan karaa sida ducada sida yani kaalmo weydiisiga sida gargaar weydiisiga intaasoo dhan xoogaa waan yara leexin karnaa ilaahay iyo baan ku jirnaa ilaahay iyo baan ku jirnaa ilaahay khayrkii baan caabudinaa saas miya arinku saas buu leeyahay subxaana wa tacaala kuwa aad caabudaysaanna hore waxaa laydinkugu soo sheegay inaysan waxba abuuri karin inay wax abuuraan iska daaya ayagaba in la abuuray ilaahay subxaana wa tacaala aayaddu wuxuu raaciyey am jacaluu lilaahi shurakaa khalaquu ka khalqihi weliba abuuray sida asaga wax u abuuro
macnaha waxaa laga wadaa kuwa aad shurakada ilaahay kaga dhigaysaan miyaaba wax abuurtayba oo arlada miyayba wax ku soo kordhiyeen oo abuurka ilaahay abuuray wax la mida may ayaguna arlada ku soo kordhiyeenoo fatashaabaha alkhalqu calayhim ma khalqigiibaa iska kiin dhex darsoomay marka ilaahay yuu abuuray ooliyadayay abuureen ilaahayas abuuray asnaamtiyay abuureen ilaahay wuxuu abuuray iyo dadkii kale waxay abuureen maa iska kiin dhex darsoomay saa daraaddeed maa idinku kaliftay inaad ilahay khayrkii caabudaan hadda qof qiri kara ma jirto ilaahay dadkan bini aadamku meesha wada dhooban oo adduunka wada jooga baa qaarna awliyada abuurtay ama qaarna asnaamta abuurtay ama qaarna waxyaabo kale abuureen qaarna ilaahay abuur cid dhihi karta ma jirto cid ku dhiiran kartana ma jirto sooma marka ilaahay subxana wa tacaala wuxuu leeyahay ma ilaahay baad shuraka u yeelaysaanoo ma waxaa jiro dadaan qofaan alla ahayn oo khalqigan abuuray saa daraaddeed miyaaba khalaa'iqda iska kiin dhex darsoontay ma dadkiia iska kiin dhex darsoomay taamaa idinku kaliftay inaad intana caabudaan waana sax sooma hadday dadku iska kaasoo dhex darsoomaan oo 10kaana waxaa abuuray owliyada 10kaana alla abuuray haddii lagu yidhaahdo kolley waxaad leedahay tan waa ku wareeraye bal owliyadana wax baan ka dayanaya ilahay baan wax ka dayanaya saas leedahay sooma caqliga saas uu keenaya laakiin haddaysan ayagu waxba abuurin oysan dhul arlada dusheeda waxba ku soo kordhin sidee baad cibaado u siinaysaa marka edab daro wey edab daro aad u weyn wey ilaahay asagaa dadkao dhan abuuray hadduu abuurayna cibaadada asagaa mutaystay wax kastana asagaa mutaystay macna fatashaabaha alkhalqu calayhim ma khalqigaa iska keensiin dhex darsoomay ilaahay subxaanahu watacaala qul illaah khaaliqun kulli shay wax kasta ilahay asagaa wahuwa alwaaxid alqahaar keligii wey cibaadada asagaa iska leh wax kastana asagaa iska leh bini aadamku asaga waa daciif hadduu geeriyoodana ducow kaa mutaystay inaad u ducayso oo tirahdo ilaahayow kani waa miskiine jannadaada gee naartaadana ka badbaaday inaad tirahdo ayuu mudanya waxaan rabaa inaan sheego shirkigu saameyntiisa ugu weyn waxaa ka mid a waa kuwa ku dhaca hadduusan ka soo laaban uusan ka toobad keenin alla subxaanahu wa tacaala inuusan wax cibaadaha ka aqbalaynin sidoo kalena loo dembi dhaafaynin hadduu geeriyoodana uu naar galayo soo ciqaabtii ugu weynay sooma in ilaahay subxaanahu wa tacaala wax cibaadaha kaa aqbalin inaanan wax toobada lagaa aqbalin soo rakaata maa soo dhibaata maa soo laguma fogeynin fogeyntaas iyo fogaantaa iyada lagu fogeeyey waxaad ku sababsatay ama kuu keentay waa ilaahay keyrkiidood caabuday ilaahay waa tan uu leeyahay ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waman yushrik biاllahi faqad dalla dalaala baciida ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ilaahay ma dhaafa subxaana wa tacaala in loo shariik yeelo in asaga wax lala wadaajiyo ilaahay ma dhaafo qofkaasi ilaahay wax la wadaajiyeyna dembi lagama dhaafo macnaheedu ma aha hadduu toobad keeno toobad lagama aqbala maa waa toobad keeni karaa waa soo laaban karaa haddaad soo laabato towbaddaa kadib baa cibaado laga aqbali laakiin towbaddaa wixii ka horeeyey cibaadadaasi waa eber habaa'an munbathan wey waa boor wey boor la firdhii bay noqonaysaa oo hadda soo dhibaato cibaado fara badan yacni waxa weeyaan salaatuleyl fara badan baa jiro dad sameeya laakiin hoog ku sugan cibaadadoodao dhanna ilaahay subxaana wa tacaala khasaare ka soo qaadayo dembigaagaba la dhaafi maayaba maanta dhan ku hay ilaahu ii dembi dhaaf ilaahu ii naxariiso maantao dhan sadaqa bixi maantao dhan soon maantao dhan salaad ku jir maantao dhan yani waxa weeyaan isjawxari waxaa doonta samee si kastaba ilahay cibaado kaa aqbali maayo haddaadba shirkiga ku sugan tahay oo adiguba ballankaagu uu yahay siyaarada soo socoto baan tegi doonaa qabri hebel sheekh cabdiqaadir sheekh sidaas sheekh suleymaan maalla ma aqaane baan tegi doonaa hadduu yacni waxa weeyaan qasadkaagu sidaa yahay cibaado kasta oo ka sokaysa ilaahay kaa aqbali maayo istikfaartaadan ilaahay aqbali maayo hal mid baa lagaa aqbalaya ilaahay waan toobad keenay ilaahayoo shirkiga waa ka toobad keenay inaad ashahaadato dib u soo laabato dib u islaantaad u baahanta
dib inaad usoo laabato islaamnimada dib u qaadato dib u toobad keento taa baad u baahanta shuruudihi aad soo marto saa haddaad samayso waxaad tahay qof islaama qof laga aqbalayo cibaadada qof soonka laga aqbalayo qof salaada laga aqbalayo qof ducada laga aqbalayo qof istighfaarta laga aqbalayaad haddii kale sooma ku taagna wadadaada adiguna wax duca laga aqbali maayo salaad laga aqbali maayo soon laga aqbali maayo weligaa badaal laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa dembi kale oo shirkiga ka soo haray ilahay waa dhaafaya zinada ilahay waa kaa dhaafaya dilka ilahay waa kaa dhaafaya dhiigga haddaad gasho ilahay waa kaa dhaafi karaa oo haddaad yani yaro toobad keento ilahay waa ka aqbali karaa subxana wa tacaala beenta haddaad sheeg ilahay waa ka aqbali waa kaa toobad aqbalaya dunuubta waa weyn ilahay waa ka aqbalaya laakiin shirkigu ilahay ma dhaafo ilahay uma dhaafo qofka noocaas oo kaleentaa dembi uma dhaafo waaye dembiga waxaa la dhaafayaa un markaad toobad keento ood soo laabato tiri ilahay waa soo laabtay waan ka soo laabtay waxaasoo dhan hadda wixii ka bilawda ilahu keligaa baan ku caabudi doonaa ilaahayou dembigayga dhaaf markaad tirahdo waa lagaa dhaafi cibaadadaad samaysana waa lagaa aqbali laakiin intaadba taageerayso garab siinayso shirkiga iyo ehelkiisu ilaahay cibaadadaada aqbali maayo si kastaba u daale saameyntiisa waxaa kaloo ka mid ah qofkii sidaa ku dhinta naar buu galaa xitaa haddii uu ahaa midka dadka ugu cibaadada badan naar buu galaya waa tan nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu yidhi man maata laa yushriku biاllahi shayئa dakhala aljanna waman maata yushrik biاllahi shayئa dakhala الnaar rawaahu muslim xadiiska muslim baa warinaya nabiga salawaatu rabbi wasalamu aleyh wuxuu yidhi qofkii dhinta asagoo ilaahay cid la wadaajinayo ilaahay buu cid la wadaajin jiray dabcan waxaa laga yaabaa inuu salaadaha ku fiicnaa soonka ku fiicnaa ducada ku fiicnaa sadaqada ku fiicnaa yacni waxaweyan qaraaba xiriiriska ku fiicnaa iska toosnaayo nin hagaagsan iska ahaa laakiin dhanka kalew ka xumaa oo wuxuu aaminsanaa un owliyada iyo yacni asnaamta iyo in la caabudi karo tawasul ay tahayoo ilaahay loogu sii dhowaanayo ma jiro ilahay cid loo mara subxana wa tacaala keligii baa la caabudaa haddaad dhahdo qof dhintayoo sheekh oo mar hore geeriyooday baan ilaahay u sii marayaa si uu iiga ergeeyo waxaas wax jira maaha waa sheeka bereley wey sheeka bereley san lahayn weeyaan ilaahay keligii baa la caabudaa asagaasa la maraa haddaad doonto adigu cibaada hore aa u samaysatay iyo haddaad doonto ilahay ugu tawasul waa samayn karta ilahay ugu tawasul laakiin inaad tiraahdo qof kalean u marayaa oo waxaan dhaha sheekh hebelow ilaahay iiga ergee ee waxaas iiga soo qaad ani ma ka qaadan kariye ya ani kama qaadan karo qofka waxaa nasiib daraa haddana qofka sidaas samaynayo qofkan uu baryayo weligiis ma arkin weligiis lama kulmin mana oga wuxuu samayn jiray laakiin wuxuu iska arkay un dadka iska badanoo meesha doobanoo un wax un weydiisanayo dhahayo noo gargaaro noo soo hiiliyo yacni madad yaa hebel dhahaya buu iska arkay madad yaa jaylaani iyo madad yaa hebel iyo dhahaya buu iska arkay waa dameeri dhaan raacday dad waxaa iska jira sidoodaba cilmi ma leh aqoon uma leh wixii caabudayaan ma yaqaanaan hataa hadduu qofkii yaqaano qiil buuba haystaayo aqoon buu u leeyahay qiilka inkastuusan anficaynin uusan waxba u taraynin haddana waa kan kale waa dhaamaa oo jaahilka ah waa miskiin wey jaahil ah waxba ma oga waa dameeri dhaan raacday dameeruhu sidoodaba midka ugu horey iska raacaan meesha u socda iska daba raacaan marka adugu dameeri dhaan raacday ha noqonino dadkan badnaantooda yaysan ku kadinin xaqu badnaan iyo yaraanba ma leh in yar baa xaqa ku taagnaan karta kaadhiin intaanoo badan maa xaqdaro ku taagan wadarta iyo waaxidka yaa waalan diintu kuma jirto taas diintu wadarta iyo waaxidka yaa waalan lama dhihi karo nabi maxamed sal ly slm saxaabadiisa ayagoo 10 ah baa kumanaan yacni magaalada maka ku noolaa bay gaalo ahaayeen markuma waxaa la leeyahay maxamedoo 10 wata maan raacaa male maaha xaqu dadka wata waa yaraan karaan waana badan karaan marka qiyaastaadu yaysan noqonin
intaanoo qofood maa xaq daro ku taagan iyo intaanoo qofoodoo wada culimada ah maa yacni khayr yani xaq daro ku taagan ma annagaa xaq ku taagan saasaa dhihin saa daraaddeed buu nabig ala sal slam wuxuu leeyahay qofkii dhinta asagoo ilaahay aan u shariig yeelaynin jannaduu galaya. xadiid kalena wuxuu ahaa camalkiisu siduu doonaba ha ahaado, siduu doonaba ha u yaraado, laakiin waxaa u astaysan asagu janno inuu ku dambaynayo. xataa haddii la ciqaabo la cadaabo ilaahay cadaabka kuma waarinayo qofka ilaahay subxaana wa tacaala keligii caabudi jiray, keligii tala saaran jiray kuma waaro. walaakiin midka aan ilaahay keyrkii caabudi jiray sidaana ku dhintay jannaba dhadhami maayo, naartana waa ku waaraya buuri nabi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh. waxyaabaha shirkiga ah waxaa ka mid a qofka allah subxaana wa tacaala u tala saarto si dhaba. waxyaabaha tawxiidka wanaagsan oo khayrka waxaa ka mid a ilahay inaad keligii u tala saarato. wax kastoo yani waxa weeyaan kugu dhaca oo cidhiiri ah oo dhibaato ahna ilaahay inay keeneen aada aaminto. haddaad isla markiiba aada iilato markay dhibaato kugu dhacdo, markay musiibo kugu dhacdo, markay balaayo kugu habsato, markay fitan kugu habsadaan, musiibooyinka markay kugu soo laalaabtaanba haddaad tidhaahdo qof kale aad u cararto ama saaxir aad u tagto ama kaahin aad u tagto, dad baa laga yaabaa inay sameeyaan xoogaa way dhali waayeen. haweeneyda hadday dhali weydo ninka waxaa laga yaabaa inuu xooga yaro tashwiish galo, yidhahdo xaa kugu dhacay, markaasuu wuxuu leeyahay sheekh hebel baan u tagaynaa si lagu soo fiiriyo bal arrintaada loo soo ogaado. waa loo tegey, markaasaa leeyahay naagtu waa dhali laadahay, markaasuu wax soo qorqorayaa, wax samaynayaayo kitaab fiirinayaayo waa kaahin wey. marka musiibo kugu dhacday ma jirto ilaahay baa loo celiyaa, adigaana lagugu imtixaanayaa, iimaankaagaa la fiirinaya. ilan iimaanku sidiisaba lama ogaado qofka markuu barwaaqada ku sugan yahay, ee waxaa la ogaadaa qofka markuu dhibaatada galo, markaasaa la ogaada ma iimaan buu leeyahay iyo mase iimaan ma lah. qofka markuu xanaaqsan yaho kale, markuu dhibaatada ku sugan yaho kale, markay yani waxa weeyaan duruufuhu jiraan oo kale, goortaasaa la ogaadaa qofka iimaankiisa dhabta ka yahay iyo qofkaan iimaanka lahayn, goortaasaa lakala ogaadaa. watan ilahi subxana wa tacaala ma asaaba min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir. ilahay wuxu uhi subxaana wa tacaala musiibo ma dhacdo, adinka idinkuma dhacdo, dhulku kuma dhacdo, ama nafsadiina musiibo iyo fidno kuma dhacdo, cudur kuma dhaco, dhibaato kuma dhacdo, yani waxa weeyaan caruur la-aan kuma dhacdo, shiid kuma dhaco, waxyaabahaas nafsadiina ku dhacayo dhan ilaa fi kitaabin, kitaab bay ku sugnaayeen min qabli horaan, kitaab bay hore ugu qornaayeen. waxaas waa wax asteysnaa, waa wax lasii qoray, waa wax lasii diyaariyey, waxaas oo la doonayay in adiga lagugu miisaamo, iimaankaaga lagu miisaamo, caqligaaga lagu garto. muxuu samayn doonaa? mar hore caafimaad buu qabiy, waa faraxsanaa, waa quslayy, salaaddii waa dukanayy, waa soomayey, waa dhaqaaqay. laakiin hadda markii musiibada ku dhacday o dhibaatada ku dhacday, hadal nuucee ka soo bixi doonaa? isla markaas asabru cinda sadmati اluulaa, kamaa qaala salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. sabirku waa dhufashada koowaad. marka koowaadee wax kugu dhacan baa la doonaya inaad sabirka aado, isla marka baa tidhahda waan sabirsanaha, dhib ma jiro, alxamdu lilah calaa kulli xaal inaad tidhahda la raba. haddaad sidaa dhihi weydo ood xadgudubto, caruurtaa kaa xanuunsan karta marmar qaarkood, markaasaad wareeri, inta derbiga madaxa ku dhufo, oo inta ku dhufo, oo shirki ku dhac, oo khuraafaad gal, oo inta gee, oo halkaa gee, oo saaxir u gee, oo kaahin u gee, meel kastaad ka dhici. war cunugaani ilaahay baa u qoray xanuunka, ilaahay baana ka qaadi karee, ha waalanin. taas way macnaa, ha waalanin, ha cararin, ha boodboodin, daawo dhib male, iska caadi ah, dhakhtar u gee, hala baaro, dhib male. laakiin inaad wareertood meelaha ku dhacdood, yacni waxa weeyaan xirsi u soo xer iyo jijin gacanta usoo geli iyo balaayo ku daldal iyo qoorta katiinad usoo saar iyo waxaasoo dhan waa waxyaaba khuraafaad, waxba kama jiraan. katiinad baa qoorta loo soo gelin, waxaa leeyahay nabraa xoogaa bay ka ilaalin, ishay ka xifdin, jijin baa yani gacanta loo soo gelinaya, xirsi baa loo soo xeraya, balaayo dhan baa lagu samaynaya cunuga si uu caafimaado. qaarkood madaxay caleen ka saaraan, maxay ka wadaan ma aqaane, ishay ka ilaalinaysaa iyo
balaayaday ka xifdinaysaa iyo naag uur lahaa ka talaabsatay iyo naag yacni dhiig qabtaa guriga soo gashay iyo war waxaasoo dhan maa anzala allahu biha min suldaan wey waxba kama jiraan ilahay ka cabsada subxana wa tacala cid ilaahay aan ahaynoo si gaara wax u saamayn kartana ma jirto naag uur lahaan wax saamaynaynin walaa naag dhiig qabtaan wax saamaynaynin waxaasoo dhan waxba ma saameeyaan ilaahay baa wax kasta keena ilaa fii kitaabin min qabli kitaab bay kusii qorneed annabraaha bini aadamku intaan la abuurin bayba kitaab kusii qorneedba ina dalika cala allahi yasiir sababta saa loo samaynayo ilaahay baa sheegay likay laa ta'sow calaa maa faatakum walaa tafraxuu bima aataakum bur ilahi subxana wa tacaala si aadan u murgin ilin adigu maxaa lagugu sii sheegayaa musiibada kugu dhacday inay sii qorneyd maxaa lagugu sheegay asbaabta lagugu sheegay waxaa ka mid a inaadan ka murgin likay laa ta'sow calaa maa faatakum wixii kaa tegay wixii kugu dhacay inaysan ku muruga gelinin oodan murgin ood istiraahdo waxaan igu dhacay ilaahay baa igu riday sax waa sii qornaayeen sax ilaahay baa sii qorsheeyey sii qoondayey kitaab bay ku qoran tahay wa kullu shayin axsaynaahu kitaaban soo ahayn wax kasta ilaahay kitaab buu ku qoray likay laa ta'sow calaa maa walaa tafraxuu bima aataakum waxa idin yimaaday oo khayrana inaadan ku kibrin baa lagugu sameeyey wax kastoo kugu dhacay ilan laba wey musiibada waxa kugu dhacay ama qadarka ilaahay waa laba midna waa khayr midna waa shar hadda midka khayrka waa la wada rumaysan yahayoo marka qofka khayr uu helo alxamdu lilah buu leeyahy laakiin markay shari ku dhacdo muxuu u sabri laayahay muxuu u dhihi laayahay ilaahay baa qoray muxuu u dhihi laayahay ma dhahayo saa waa waalanaya meelo kale ku dhacaya waxyaabahaasoo dhan lama ogolo ilahay waa diiday subxana wa tacaala wuxuu kaloo ilaahay subxaana wa tacaala yidhi ama inoo sheegayaa in la tala saarto ilaahay subxaana wa tacaala goorta ay musiibada dhacdo keligiina loo ordo loo cararo la rumeeyana qadarka la rumeeyo waa tan ilahi yidhi subxana wa tacaala maa asaaba min musiibatin ila biidni illaah waman yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli shayin caliim ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeyahay war musiibo idinkuma dhacdo balaayo idinkuma habsato ilaa biidni illaah ilaa hadday idinku habsato idinka ilahay bay ku dhacday qof kale maa owliyaa la caayay iyo hadda waxaa la yihahda haddii owliyada wax ka sheegto saan baad noqon oo waad xanuunsan oo waad waalan oo carabkaa ku qaloocan oo balaayaa kugu dhici waxaasoo dhan wax jira ma balaayo hadday dhacaysana ilaahay baa keena musiibo hadday dhacaysana ilaahay baa keena hadduu wanaag dhacayana wanaagga allah sabab u ah cid kaloo keeni karta roob hadduu yimaado ilahay baa sabab u ah barwaaqada ilaahay baa sabab u ah waxyaabahaasoo dhan ilaahay baa keena subxaana wa tacaala ilaahay baa keena ma jira marka wax la yidhaahdo qof hebel baa keena iyo hadday musiibada dhacdana waxbaa lagu caasiyey iyo wixii la mida waxaasoo dhan arrintu kuma timaado ilahay wuxuu subxaana wa tacaala musiiba hadda idinku dhacda ilahay u carra keligii rumeeya waman yu'min billahi yahdi qalba qofka ilaahay rumeeyo ilaahay qalbigiisuu hanuuninayaayo iimaan baa qalbigaaga ilahay kaaga buuxinaya subxana wa tacaala ilaahay baa iimaan qalbiga kaaga buuxinay wallahu bikulli shayin caliim wax kastana ilahay baa ka warhaya subxana wa tacaala qaabkay u dhaceen iyo meeshay ku dambayn doonaan munaasabadda waxa weeye in ilaahay keliya la caabudo in ilaahay keliya la waxido in ilaahay keliya loo gooni yeelo wax kasta hadday khayr tahayna ilaahay baa keena la yidhaahdo hadduu shar yahayna ilaahay baa keena la yidhaahdo intuba la rumeeyo cibaadadana sida ducada ilaahay keligii la caabudo oo la yidhahdo ilaahayow 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 la dhaho yaa allah la dhaho yaa rabbi la dhaho oon la dhihin yaa rasuulallahi la dhihin oon la dhihin wixii ka soo haro oo nebigaba haddii in la caabudo la diiday ma wax kale la ogolaanaya ma qofaad adigu ooliya u taqaana la ogolaanaya ma qof yani waxa weyaan sanamaa la ogolaanaya ma qoraxaa la ogolaanaya waxaasoo dhan waa wax ka soo haray lama ogolaanayo nebigi yaab la yidhi yaan la caabudin waa rasuul alle ilaahay baa soo diray muxamedun rasuulullah muxamed waa rasuulka ilaahay subxaana wa tacaala ma aha kii la caabudayo laga cibaado yeelanayay ma aha bal hadda nasaaradu iyo waxay caabudaanoo ciisa ah waa tan ilaahay leeyahay maalinta qiyaamaha ciisow ma adigaa yidhi cibaado naga dhigto na caabuda aniga iyo hooyaday anta qulta linnaasi ittakhiduu yani soo mahayn aayaddii yacni ma adigaa yidhi aniga iyo hooyaday cibaado naga yeesha markaasoo dhiidino ilaahayow maya ilaahayow ma dhihin ilaahayow ma mudnid
cibaado adigaa mudan ilaahu ma dhihin adigu baad ogta saasoo dhihi doonaa ilaahayu adigu baad og tahay saasoo dhihi doonaa ee ilaahayu addoommadaada haddaad doonto cadaabo haddaad doontana iska daa waa addoommadaada haddaad ilaahayu ciqaabto waa addoommadaada haddaad u dambi dhaaftana ilaahay waa addoommadaada laakiin anigu badanyaan liisoo gelin anigu ma dhihin icaabuda ma dhihin cibaado iga yeesha ma dhihin mar walba waxaan ugu yeerayay tawxiidka ilaahay keliya caabuda war ilaahay keliya talada saarta war ilaahay keliya aamina war ilaahay keliya taladiina ha saarnaato mar walbay musiibo idinku dhacda yaa allah dhaha kahor intaadan wax kale u carrin dad baa laga yaabaa in markii xoogaa waxyaaba ku dhacaan hallay tufa dhahaya qur-aan halii saaro war qur-aankaas iska daaye bal waxaad samaysaa qur-aanka waa caafimaad laakiin markaad xanuunsataba ilaahay ku carar marka hore ilahay ku carar ilaahayow xanuunkaan iga caafi ilaahayow xanuunka iga caafi ilaahayow caafi mar walba ku soo celceli mar walba ilaahay taladaada saaro mar walba ilaahay bari markaad daasho oo welina aad xanuunsan tahay bal markaasi dhe qudada aad xoogaa yaraa wanaag ku tuhmayso waad dhihi kartaa bal kaalaya xoogaa ilaahay ii barya qur-aanna yarna isaara waad dhihi kartaa dhib male laakiin marka lagu qabtaba aad tira bal culimada ha liigu waco 7 sheekh 7 wadaad ha liigu yeero oo qur-aanka oo dhan isaarta taa qalad weeye aliska ilaaliya arrimaha noocaas oo kaleenta muhiimadda waxa weeyaan ilaahay keliya inaad caabudaan ilaahay keliya aad tala saarataan umuurihiin oo dhan ilaahay aad u bandhigataan subxaana wa tacaala ilaahay goortaasi waa noo gargaaraya ilaahay goortaasi waa na caawinaya ilaahay goortaasi amni buuna siinaya ilaahay goortaasi waa noo dembi dhaafaya ilaahay goortaasi barwaaqoo dhan buu ilaahay subxana wa tacaala na siinaya musiibada iyo yacni waxa weeyaan abaaraha iyo baahidana ilaahay subxana wa tacaala waa naga qaadaya biidni illahi tabaaraka wa tacaala hada wabillahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam